السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا عشر كانوا حيسنة عشر كان مانتو حاوجها لنا importance of حجاب. أوكي فإذا أولية حجاب كإنسان عشر كجلين أرضيدا وحلو جيسينيا إنه صعدوا إزديوان جلينتا كورسوين كأونلاين كها يكون في سكول كها سكول كأريزونا كوليدج برانش 2 وكويا لحافظ إسلي سكن فينيو سواء كان أرضيدا وحادي هذا وضع السنة إن channel كتاجران فلو جريان سين شر جريان سوق على أصحاب فربضن أو باهن إنك فائدة استان عشرة كنا سوق جريدو. Importance of hijab فائدة أولية حجابك. Good morning صباح wanaagsan. Today maanta I want to talk about waxaan rabaa inaan ka hadlo the importance of hijab فائدة أولية حجابك ama أهمية uu حجابك leeyahay. To understand si aan u fahanno its importance faa'iidadiisa one should know midku waa inuu ogaadaa ama qof waa inuu ogaadaa that modesty xishoodka iyo akhlaaqda has been part and parcel inuu waa qayb ka tirsan of the Islamic culture. Okay, dhaqanka islaamka aan xijaabkana encourage wuxuu dhiirigelinayaa modesty akhlaaqda iyo xishoodka ayuu dhiirigelinayaa both physically and spiritually macnaha muuqaal ahaan iyo ruuxi ahaan labadaba. When a woman marka islaantu covers her body marka qofka dumarka uu jirkiisa daboolo as by Allah's command sidoo Ilaahay u amray Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amray dumarka muslimiinta inay jirkooda daboolaan waxaan ka ahayn wajiga iyo labada gacmood. Okay, oo ku wax lagu qabto gacanta dhan ma aha qaybta wax lagu qabto oo wada garanayna dhamaanteed soo good marka a woman qofka dumarka covers ay daboosho her body jirkeeda as Allah's command so Ilaahay u amray it makes the connection waxay ka yeelaysaa xiriirka between u dhaxeeya the almighty Ilaahay and that woman qofkaas dumarka stronger mid xoog leh. Hijab has always been hijabku wuxuu ahaa markasta a topic for debate mawduuc dood ama mawduuc macnaha lagu doodo oo ay sheeg dadka inta aanan aaminsanayn diinta islaamka ay inta badan gabdhaha ku dhiirigeliyaan inay hijabku culays u yahay oo macnaha lagu ciqaabayo xayawaan mid marka wuxuu ahaa topic inta badan laga doodo. However si kasta haatee for the Muslim women dumarka muslimiinta who kwato practiced ku dhaqma the custom of hijab dhaqanka xijaabka ama caadada xijaabka xirashadiisa it was never even a question hatta su'aal muusan noqonayn in su'aal laga weydiiyo maysan noqonaynin. Okay, and however si kasta haatee other women dumarka kale and young girls iyo gabdhaha yaryar who kwaso wore hijab xiranaya xijaab waa the best of wear xirashada fartaga without knowing kwaso macnaha aanan garanaynin its importance muhiimadiisa waa often confused ya inta badan ama qaaliban la jahwareerin jiray macnaha qofka duusan garanaynin waxaan uu sameeyay faa'iidada uu leeyahay ahmiyada uu leeyahay iyo sababta uu sameeyo marka way fududahay in la saameeyo. Okay, marka dadkaas ayaa la wareerin jiray dadkaan garanaynin muhiimada iyo ahmiyada iyo gabdhaha yaryar ee hadda soo kacayo. There is a lot of wisdom waxaa jirta xikmad fara badan in wearing hijab oo xirashada xijaabka ku dugan xikmado fara badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku amray inay dumarka is xijaabaan ayaa jira. Okay, which makes taasoo ka dhigaysa this women dumarka who kuwaasoo cover daboola their body jirkooda extraordinary kuwa macnaha cajiib amazing okay macnaha gabadhu markay tahay gabar jirkeeda daboolayso qof kasta oo rag ayaa damcaya. Okay, laakiin gabadha qaaban like loo saaro haloo share gareeyo commenting lagu amaano laakiin ma jirto qof macnaha rabo inuu mustaqbal la sameeyo. Marka topican waxa uu soo qaadanay waxa waaye gabdhahayna walaalahayna Soomaaliyeed ee waayadan dambe xijaabkii ka tagay inay macnaha kuwaas qaataan sidoo kale dhanka kalena ereyada ku jiro iyo maadaama khudbad ay tahayna ardayda rabo barashada luqadda Ingiriiska inay ka faa'iidaan labadaas faa'iido ayaan cashirkan u soo gelinay. aad iyo aad u mahadsantihiin hala share gareeyo cashirka hadda halkan soo gaartay waxaa ka codsanaynaa adigoo aanan follow dhihin si share gareeyin like na saarin ha ka bixin halkan aad u mahadsantihiin.